أحمد كسر دو مركو هراء إذا عدى فيو هذا ما سنتي محمد أحمد وحوي نسي هذا لو يقانو عد كيسة مقعيسة يحرف دي سبات هاي إذا عد وين أياد كشغيني سي مدردير BBC ده محاك اللي فين هذا مركن أسوريكتو فيو هذا محمد أرتواد ما سنتي نبى وحلقة شيء إنه يدي أن نوين بان هو رامي ما يوحن أكيد وابلوجان marka runtii waxyaabaha igu kalifay waa idaacad weyn oo BBC da marka aynu eegno guud ahaan yani waa idaacadaha taariikhda kule afkay doonaan ha ku baxeen caalamkan ee laga dambeeyay ee la qadariyo laakiin waxa weeyaan wuxuu mahday si u yar majaara habaabaan ma sii fiicna waxa weynaato oo imika midalan markaynu ka soo qaadno luqada af Soomaaliga oo kale waa 50 sanadood ayaa u buuxsamay وانا إذا عد وين وضدكوا عاد وحدنا أيه هاي لكن لو مثلا لبضبا دمرك اللي هو إذا عد وين تلكي لورنش السوفيت يونيون كوب مربو باورها حدي السوفيت يونيون كذلك قارنين نو قرنين بو أيريهين أو يمكن روس كون أي مغلال الصومالي بك سوق دل قدريو دل وناكسن وحود كلا أيه هاي حتى نوضرك سيدي تاحدنا لوغا شاكين ماي marka weynida horun lama raacay wixii markaasi jira ayaa meesha taala teeda kale aniga waxa iga tahay intaas waa hordhacune kulli nolosha inta aad nooshay waanad khibrad heshaa horumar aad samaysaa aad hiigsataa meel kale marka wixii aad ku hiigsan lahayd hadii ay arki weydo inaad halkan ku gaadhay kulli meel kale aad uga bedelanaysaa maxamed marka saas la maqlo waxa leeyahay Axmed experience-ga iyo ma garanaysaa waxa u dhimanba muxuu yahay dhinac walba ayuu ka gaadhay dhinaca saxaafadda idaacadii ugu weyneedna codkiisa malaayiin Soomaali maalin kasta way dhageysataa maxamed waxa weeyaan experience-ku maaha un meesha aad joogtid waxa laga yaabaa in meesha aan ku soo socdo dhinac kale experience-ku uu ka jiro waxana ugu sii weyn waxa weeyaan talent-ka aad leedahay haddaanad meel ku soo bandhigi karay yani hibada ilaahay uu ku siiyey oo aad aragtid in markaasi aanad haysan fursadii waxaanad ku soo bandhigi lahaydo si qalloocani ay jirto dabcan waxaad soconaysaa caqligan ilaahay ku siiyey maskaxdan ilaahay ku siiyey awoodan ilaahay ku siiyey iyo kartidan ilaahay ku siiyey iyo talentkan ilaahay ku siiyey ama hal abuurnimadaas meel kale oo ku soo bandhigta ayaa wanaagsan oo aad inta aad nooshay dadkii uga faa'iideeyay marka taas ma nujeeda dhageystayaashii kala duwan Axmed oo kugu dhageysan jiray idaacadihii Soomaaliya iyo BBC da ay hadda kugu dhageysan doona VOA da maxaad ku leedahay waxaan ku leeyahay ku soo dhawaada codka Mareykanka idinka ayaa garsoorayaala oo kala saari kara wuxuu horta nolosha hadayna tartan lahayn naf male waxa weyn idaacadda BBC da way idaacad weyn sidaan horeba kuugu sheegay maxamed laakiin waxa weeye noloshu hadii aanay tartan lahayn aniga ilama qurxoona wax kula tartama hadaad weydina kuumaba dhandhamasaba waxa weeyaan idaacadda BBC du annaga ka wariyaal han shaqaale iyo dadka Soomaaliyeed xuurtay ku haysat dadku idaacad u dhiganta BBC da oo ay dhageystaan ما يحيسن وحادو تتكسك كو خصبناين ولا دغيسن waa lagu khasbana waxaadoo titkaseeg annaguna waanu ku khasbanayno deedina anuga wareegna man hayno marka annagii iyo dadkiiba xuurtay ku haysay laakiin imika xuurtadii dadkiina uu ka baxeen annaguna ka baxnay isha macallina kaynu deynaa garsoorida meeshii tartan baa imanayay marka diyaar baa tahay Axmed dhinacaaga markii aan Afrika jooga waxaan bartay kelmad la yiraahdo kabisa yani absolutely Axmed markii dhaweydna waad soo qaatay Soviyetka marka waxaad leedahay isbedelkan anigu idaacadii aan ka bedelanayo mooyaane kulli waataan ku dhiyeen kugu horeysay nin weyn baan hoo warramay maayo waxaan arkay waaba la ogaan marka waxa weeyaan de isha macallina tuna waa macallin nimika isha macallin baa loo oran jiray taasi dadweynaha ku wanaagsan runtii inaynu weydiino markaan si kale u dhigno Axmed in badan baad ku soo jirtay idaacadaha dadku ay ku dhageystaan ma xusuusta markii kugu horeysay idaacad ka hadasho iyo wixii aad ka hadlaysay markaa in fact maalintii ugu horeysay ee aan idaacad ka hadlay ereygi aan iri ma garanayo laakiin waxaan aad u sii xusuustaa 1973 baa waa muddo dheer maalintii ugu horeysay ee aan war akhriyo bala anigoo 7 cisho ilaa 10 cisho ku jiray ayaa warka la ii dhiibay barigaasina ma jirin af Soomaaligan lagu tarjumayay markaan idaacadii dhameynay warkii ayaa waxaan idhi warba intaasu nagaga dhan yahay sidii waxaan war daboodan kala hay Ismaaciil Bakar ayaa wasiir bariga marka sidoo warba intaasu nagaga dhan yahay ka daayo warkii intaasu ku dhan yahay waan xasuustaa ereygaasi
iyo runtii dee waxyaabo badan ereyga maalintii ugu horreysay lagu qoslay kaasuu ahaa. marka idaacaddii markaasi aad ka bilowday radio muqdisho mise radio hargeysa? radio muqdisho anigu ka bilaabay, radio hargeysa weligey kama shaqayn. markay noqoto axmed, muddo fara badan 73 markaad fiiriso in badan baad kusoo dhex jirtay idaacadaha wararka kala duwan. warkaad is leedahay wuu kuugu naxdin badnaa oo shakhsiyaan axmed waad akhriday muxuu ahaa? maxamedow, horta waxa aada u wanaagsanaan lahayd haddii su-aalahan aan sii ogaan laha onad igu kadisenta imika waa toose. wax badan baan xusuusanaa, laakiinse kolley mid baan aniga iga goyn oo ah beri waxaa jiray lasoo saaray xukuumaddii markaasi jirtay militariga ahayd in ragga iyo dumarku ay siman yihiin oo sinaantii ragga iyo haweenka. markaasaa madaxweynihii markaasi jiray maxamed siyaad ayaa ka khudbadeeyay meel stadiuma, deetana ragga iyo dumarkii waa siman yihiin baa layidhi. suurata nisa ayaa laysku qabsaday oo markaa khudbada ku jirtay. markaa niman wadaadaa ayaa arrintaasi aada uga gadooday. soomaalida kale cid ka dhaqaaqday may jirin. nimankii ayaa lasoo xidxidhay, deetana aroortii ayaa la toogtay. barqadii markii la toogtay, warka duhurka ee 2:15 soo geli jiray ayaan anigu maalintaa lahaa. wadaadadiina waa la dilay, dadkoo dhanna way deg taagayaan. horta warka igu naxdin badnaa ee aan isri waate yani aan aada uga xuma kaasuu ahaa. waayo waxa weeye dadku mooga waxaan aan sheegana markaan dib ugu noqday yani wadankii Soomaaliya. waxa wararka dibadda moojaane inta kale wax qoranoona waxba ka bedeli karna ayay ahayd oo dalka ku saabsan. oo sidii lagugu dhiibo aad odhanayso? sidii lagugu dhiibo aad odhanayso. ummadii oo dhanna aad bay uga xumayd runtii dee dilkaasi. marka waxaad dareemaysaa inay ka odhanayaan marka lagu dhiba tiraa wadaada intaasi oo yani wadaad xumayaal iyo waxbaa dee ku qorra ayay ka odhanaya afka alla ku qabay. markaasaan waradaba maanta iyaa kaa bedesha warka. I still remember markaad sii gelaysay waad gariiraysay. markaas oo idaacaddan ka wada shaqaynayay maxamed aadan teera, labadaba waanu tagoday. nin walbana waxaan wuu og yahay. markaasuu yidhaha waa intaan cunaha isqabtaan anigo bestay baan ahay maanta waanba niyo meel kale aan kusii ordayn cidina kaama qabanayso. nasiib wanaag waxaa dhacday in markii la laayay wadaadada anigoo warkii oo sidaa u warwarsan ayay 2 diyaaradood isku dhaceen. markaas xaafad waa beriyo dhanka iyo qaybdani ay gubatay. waa isla maalinkii? waa isla barqadii markii lasoo dilay isla markiiba. markaasaa waxaa la yidhi markii warkii kale la ii keenay ayaan fakeray. waxaan idhi war intii dadku afka alla ku qabay iyo wax ku odhanaya hadda iyagoon ku ogeynin waxa lagu dhiibo shaqaalahaduuta allayle maxaad samaysaa. waxaan ku bilaabay markaa warkii diyaaradaha isku dhacay iyadoo ay ahayd inanka kale ku bilaabo real. oo sidii lagu sheegay waa isdabamarisay? waxaa yani waxaan de iyagu habkan laysku dabamarinaya badanaa ogtay dawladii xasilamay socon, laakiinse wixii doonaaba hadda een horta kan diyaaradaha kii diyaaradahaasaan waday dee 2 diyaaradood baa saa iskugu dhacay. sidaas ahayd hebel baa waday waa kan xaafadaasi. dawladuna imaka hawlihii way wada dee sidii ereyadii kacaanka anigoo isticmaalay un baan kii kale loo hoosgeliyey oo nidhin toba wadada saakada halkaasi lagu dilo waaba ka bo. horta warkiigu naxdin badnaa maxamed kaasuha ee aan ka baqdaa. markay noqoto dhinaca farxadda lafteeda, waa intaas waxa weeye dhacdooyin kala duwan baa dhacayay. warkaad is leedahay aad baad u xiiseynaysay ama waad jeclayd inaad akhrido ama markaad akhriday xiisaad dareemaysay? really kuwaasi aad bay u fara badan yihiin. waayo dee ummaddu waxay wada jecesha oo loo sheega baa jira. inta badanna berigii dee radio muqdisho la joogay waxay ahayd un warar kale oo wax aad loo xiisayn jiray. beri waxaa jiray 1977 dagaalkii Soomaaliya iyo Ethiopia oo aan faallooyinka akhriyi jiray oo ay ahayd yani qof aan isleeyahay balaa maalinta hadduu dhaafo wax weyn baa dhaafay. dadkuna runtiina aan aada ugu soo baxay ayaa moogtay markaa la jeclaa. walow imika de markaan dib u dareemo ee aan dib u eego aan idhaahdo niyo hawluhuba waxay ku wanaagsan in bal hadda labada dawladood ay si isku fahmaanayeen. laakiinse wararka yani markaan xiisay lahayd waaga. bismillaahi raxmaan raxiim. ma xiisay lahayd mise yani magaalada maan mari jirin maxamed runtii. dee rag badan oo imika xaggiinaa jooga ama imika ina maqlayaaba way joogeen amase soomaalida in badan oo kamid way ogeyd. wararka ummad waxaan idaacad ka sheego ugu xiisa badnayd ay ahayd. iyo dhinaca marka la eegana dhalinyarada iyo soo korasana barnaamijkii madadaalada maqashii madadaal la odhan jiray oo aanu gabdho kale wada sheegi jirnay. waxyaabo badan oo xiisa laa jiray. laakiinse ta ay ummaddu ka sinayd rag iyo dumar ee aanay dhaafi jirin duhurnimada faallada ahayd. axmed, mar kasta oo lagu dhegaysto hadday noqon lahayd dhinaca entertainmentiga iyo wararka muddadaa faraha badaneed ku soo jirtay, mar kasta haddana waxaa kaa muuqda xiiso iyo jacayl dadka soo jiita. maxay tahay waxaasi ku socodsiiye mar kastaba aanu daal ama maaragtay xanuun aanu kaa muuqanayn markaad wararka akhriyayso ama entertainmentiga sheegayso?
maxamed halkan ay nimankan reer galbeedku ka yidhaahdaan yani tell us the secret bal hadda waxa sirta ka dambaysa waxani noo sheeg runtii horta abuuri way iska jirtaa oo dee biniaadamku u kala duwayo waxaa laga yaabaa dad aad dhegaysan jirtay sanad ama 2 sanadood aad dhegaysanayso haddana codkiisu isbedelaa jira haddii waxa adigu aad tahay waxaan aad niyad u haysid oo aad jeceshahay waxaad samaynaysa haddaad jeceshahay horta waad soconaysaa laakiinse mushkiladdu waxa weeyaan marka aad meel kale u hanqal taaga sideed isleedahay ama siyaasi noqo ama lacag yeelo ama hawshan ka bedelo oo meel kale u bedelo well of course dabcan waysa soo gabasaa laakiinse waxay doontaba ha noqoto shaqadaada markaad aaminsantahay waad soconaysaa maxamed markay noqoto axmed oo shaqadaas aad aaminsantahay aad jeceshahay haddii aadan weriye ahayn